waxaan dhex taaganahay goob hore u camireed magaalo ahayd la deganaa dumar caruur waayeel iyo dada'ihii hore ugu noolaayeen haddase ah digadigo sidaad arkaysaan dab la qabadsiiyey waa deegaanka Iji oo hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kaasoo nasiib u yeeshay bila ka hor inuu ku gubto dagaal ahliya oo halkan ka dhacay ismaandhaaf laba beelood oo halkan daris ku ah dhex maray darteeda ayaa tuuladan dab loo qabadsiiyey dadkii ku noolaa ayaa u barakacay deegaanada ku hareeraysan iyagoo gurmadyo looga fidiyey goobihii ay gaareen ilaa iyo hadda ma jirto cid ku soo noqotay deegaanka ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ka soo kici timay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan halkana soo gaaray si uu uga qayb qaato nabadeynta deegaankan iyo dib u dhiskiisa ayaa soo gaaray deegaanka Iji waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanka Iji iyo deegaanada ku hareeraysan ee dirirtu ay dhex martay si uu halkaasi nabad uga dhaliyo isla markaana looga qayb qaato dib u dhiska deegaanka safarka nabadeynta ah ee deegaanka Iji ugaas Yuusuf waxa ku wehliyay wabarka beesha Baadicade wabar Maxamed wabar Axmed wabar Cabdi madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere gudoomiyaha degmada Bulaburte Xasan Nuur Maxamed Cabdi iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo qayb ka ahaa nabadeynta walaalaha halkan ku dagaalamay odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ayaa halkan ku wada hadlay waxaana la isla qaatay in maanta wixii ka dambeeyo deegaankan nabad loogu noolaado isla markaana laga wada qayb qaato dib u dhiska magaalada Iji oo sidaad arkaysaanba guud ahaanba burburtay ama gubatay magacay waa Abubakar Macalin Aadan Macalin Cumar anagoo markaas tilmaamaya biriga inaan ku kulunay tuulada Iji inaan markaas walaalaheena aan awal xooga hurdin dhax qaaday inaan biriga ku heshiinay aynoo yimideen madaxdeena islaawiyaha nabadoonyada ugaaska Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif inuu biriga meesha noogu duceeyay wax ala waxa ka halaawin oo duud ka saartay anagana aan ku raacnay sidaan u nahay ilaa waa kuruwa sabca jasiira beel ahaan haddana tuulada Iji wabarka Baadicade inta muslimiin oo biriis kugu timid madaxweynaha Yuusuf Dabageed magacayga waxa la yiraahdaa Macallin Yuusuf Ibraahim insha Allah taala si buuxdo ayaan u qaadanay ugaaska ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif maanta oo nagu soo booqday tuulada Iji asagoo ka shaqeynaayo nabadgelyada deegaanka iyo islaamkaba waana ku mahadsan yahay annagana waa alxamdu rabbil caalamiin shukr waa ku raacnay mideeda kale waxaan mahad u celinaynaa duubabka oo asagana saaxiibadiis oo la socdo iyo madaxda kale oo macnaha dawladda ayagana waa ku mahadsan yihiin wabarka kulli waa ku mahadsan yihiin dhalinyarta danaynayso in alxamdu rabbil caalamiin shukr oo nabad lagu dabaalo oo ma aragti waa kaaseedahay iidana danaynaysana waa ku mahadsan tahay maanta waxaan ka soo qayb galnay xalfad meeshaan ka dhacday oo laba beelood oo walaalaha baryahan shuqaaqa dhextiila lagu nabadeynaa waa lagu nabadeeyey ilaahay baa waxa noo keenay duubabkeenii dhaqanada ugaas Xasan ugaas Khaliif iyo ugaas Yuusuf ugaas Xasan iyo wabar Xasan labadaas wabar iyo yacni muxuu ahay oo dhaqanada hogaankooda ahay iyo madax kale oo kala duwan intaba meeshaan aan ku wada kulannay wax alla wixii shuqaaqaha ku jirana meeshaas way ka baxeen dadkaas walaalaha aan nahay oo diriska nahana gacmahan is haysanaa laga bilaabo saacadaas wixii meesha ku jirana way ka baxeen magacaygu waa Xuseen Colaad Cabdi ilaaha mahadle meeshaan waxaan isugu yimid barga hadday tahay ugaaskii Xawaale iyo wabarkii beesha Baadicade iyo reer Kaboole dhibkii ka dhacay ayaa la isugu yimid waxaan u baaqaynaa marka ummadda oo danaynaysa nabadda inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay nabaddaas nala qaataan waana lagu heshiiyey ilaaha mahadle warkaygu maba badnaba meesha heshiis oo gacmaha lees qabsadaa dhacay nin walbana nabaddaasaan ugu baaqaynaa ninkiin oo ummaddan ka dhex shaqaysan oo dhibku dhex wadowna bannaanka ka joog gudoomiyaha degmada Jalalaqsi mudane Nuur Dheere ayaa isaguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in madmadowgii jiray uu soo dhamaaday isla markaana ay waajib tahay in la raaco amarka ugaaska ciddii khilaaftana waxa uu yiri in aan gacmaha wax kale ku haysano taasoo u muuqata in uu soo qaban doono ciddii ku xadgudubta amarka ugaaska ee ah
in nabadgelyo lagu wada noolaado. waxaan joognaa maanta tuulada Iji ee degmada Jallaqsi wixii ka dhacana oo dhibaato ahay maanta ay dhamaadeen. warka waa warkii noo ugaaska warka uu noo yiri waaye ugaaska amarkiisa oo soconaya cidii xawaadla amar waa la siiyay guriyihii way dhismayaan ku soo dhawaada reer Ijiyow awalna waa idila joognay amarka ugaaskan oo la adkay doona qofka uu qaba in wacdi leeyahay lagu ekaahay wacdi ku ekaa ma doonay gacantayna wax ku jiraan. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa odayaasha dhaqanka ee deegaanka Iji u ballan qaaday in maanta wixii ka dambeeya aan lagu soo xadgudbi doonin sidoo kalena waxa uu ballan qaaday ugaasku in uu dhisi doono 100 guri ee ugu horeeya ee deegaankan lagu bilaabo. Sidoo kale dadka deegaanka iyo samafalayaasha ayaa loogu baaqayaa in ay qayb ka qaataan sidii dadkan dib u dejin loogu sameyn lahaa ama guryahoodii dib loogu dhisi lahaa. dabkan waxa ku burburay hanti fara badan marka laga tago guryaha waxaad arkaysaa gaadiid ku burburay dabka waasoo isugu jira noocyada kala duwan ee laga adeegsado deegaankan. deegaanka Iji waa deegaan cagaaran isla markaana ku caan ah beeraha waxaana halkan laga soo saaraa qayb badan oo kamid ah dalaga laga isticmaalo magaalooyinka waaweyn oo ay kamid tahay caasimadda dalka ee Muqdisho.